السلام عليكم وأنا قاعد أفتح إبراهيم waxaan eegi doonaa ama course-kan ku baran doonaa free-ga introduction ku saabsan ama foundation-ka uu leeyahay HTML-ku ama HTML-ku maxaa uu yahay. Waxaan ku arki doonaa shayada ugu muhiimsan HTML-ka basics-kiisa oo dhan. Sidoo kale waxaan si guud eegi doonaa waxa uu yahay web development-ka, qaabka ugu fudud ee aad u baran karayso. Sidoo kale si waliba free ah af Soomaalina ku baxaya. Marka waxaan samayn doonaa inaan YouTube-ka soo gelino waxa weeye HTML-ka ama web development-ka inagoo samayn doona HTML, kadibna ku xigsiin doonaa CSS-ka, kadibna ku xigsiin doonaa JavaScript-ga, sidoo kale iyo databases-ka waxyaabahaas oo dhan. Waxaan samayn doonaa intaynaan u guda gelin waxa weeye HTML-ku, waxaan eegi doonaa code editor-ka aan isticmaali doono ama noocuu noqonayo, okay? Marka waxaa jira code editors fara badan oo kala duwan la isticmaalo. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano Sublime Text-ka, Atom-ka iyo VS Code-ka. Marka waxaan isticmaali doonaa VS Code. So let's say waxaan odhanayaa download VS Code, something like that. Marka wuxuu ii soo saarayaa nooca computer-ka aad isticmaalaysa ama computer-ku waxa uu yahay, nooca uu yahay. Marka maadaama Windows isticmaalayo waxa aan dooranayaa kay ku qoran tahay Windows-ka. Marka waxaan ku dhufanayaa download. Sidaad arkaysa xagga hoose wuu ii soo degayaa. Okay, so marka basically uma baahni anigu inaan maxaa yeelay soo download gareeyo iminka. Kaliya waxaan ku tusay qaabka u soo download gareysanayso. Waan iska cancel-aya, okay? Maadaama hore u soo download gareysay. So marka waxaan halkan kaa yara tusayaa qaabka aad ugu shuban kartid. Uma baahna isagu inaad maxaa yeelay samayso waxyaabo dheeraad ah. Kadibna waxaad odhanaysaa next baad odhanaysaa. So markaan casharka bilaabo casharka guda galno ayaan arki doonaa qaabka loogu shubayo maxaa yeelay extensions-ka waxa loo yaqaano oo kuu saamaxaya maxaa yeelay inaad code-ka si qurux badan u samayso, si fudud u run gareyso, waxyaabahaas oo dhan extensions-ka la isticmaalayo. Okay, intaan markaan ka gudubno waxaan eegi doonaa HTML-kan maxaa uu inoo yahay ama muxuu qabtaa HTML-ku ku eegaynaa. Okay, HTML-ku marka cashar walba markaynu u gelino ayaan sharaxaynaa ama aynu ka sheekeyn doonaa marka hadday noqoto box model-kii, flexbox-kii, sorry kaasoo CSS. Macnaha waxaan ka hadlayaa HTML-ka markaan ku jirno block elements-kii, semantic HTML-kii, inline elements-kii, waxyaabahaas oo dhan waxaan ka hadli doonaa mid walba markaan ku guda jirno iyo qaabka aynu sharaxayno, okay? Laakiin iminka tusaale ahaan kale waxaan doonaynaa iminka HTML ba xaggan inoo yaala. Waynu sharixi doonaa MDN-kan waxa uu yahay. Insha Allah cashar gaar ayaan ku sharixi doonaa iyo waxyaabaha ugu muhiimsan. Okay, HTML sidaad ka arkaysid waxaa loo soo gaabiyey ama laga soo gaabiyey Hypertext Markup Language, okay? Marka waxa weeye waa markup language maaha programming language. That means waxa weeye markaan doonayno in aynu website-keena design garayno waxaan isticmaalaynaa ama structure-ka ka sameynaa 3 shay baa ugu muhiimsan. Waxa loo yaqaano HTML-ka ah oo sheegaya content-kii shayga waxa ku guda jira, iyo sidoo kale waxa loo yaqaano CSS-ka oo sheegaya isaguna qaabka waxaan content-ka loo qurxinayo, iyo waxa loo yaqaano JavaScript-ga oo isaguna sheegaya qaabka waxaan looga shaqaysiinaya ama oo ay u noqonayaan waxyaabo shaqeynaya. So marka mostly waxa la yidhaahaa shaygan HTML-ku marka macnaha la sheegayo waa noun, waa magacii, okay? CSS-kuna waa adjective-kii waxaan uu sifaynaya, okay? JavaScript-kuna waxa weeye waxa loo yaqaano verb-kii, okay? So basically intaasuu sheegaya ama macnaha ugu muhiimsan aad fahanto marka laga hadlayo web development-ka si guud, okay, basic-ga. So markaynu casharka usii guda galno casharada kale ayaan arki doonaa waxyaabaha ay yihiin, okay? So marka waxyaabahan looma baahna inaan akhrino macnaha English-ka. Macnaha wuxuu kuu sheegaya inuu yahay most basic building block of the web. Macnaha waxyaabaha ugu basic ah ee uu ka samaysan yahay website-keenu inay tahay ayuu macnaha inoo sheegaya, okay? Xagga hoose dadka arkaysid waxa uu ku leeyahay hypertext-ga that means macnaheedu waxa weeye wuxuu ku leeyahay waxa loo tixgeliyaa inay tahay macnaha shay
links oo kugu xiraya meel markaynu HTTP ka hadlayno ama hypertext transfer protocol-ka ayaynu sheegi doonaa waxa uu yahay waxyaabahaas oo kale okay marka hypertext-ga macnaheedu waxa weeye shayga markaan ku dhufto halka saaran text way saaran macnaha calaamada CSS kaasoo kale CSS ka haddaan ku dhufto time is waxa weeye meel bay geenaysaa ka hypertext-ga saas uu ku sheego inaan arki doonaa anchor tags baa loo isticmaalaa okay xagga wuxuu ku leeyahay HTML ku wuxuu isticmaalaa markup ama text image iyo waxyaabahaas oo dhan marka xagga wuxuu kugu sheegaya tagiska isticmaalaya marka waxa uu isticmaalaa waxyaabo loo yaqaan tags okay so basically introduction ku saabsan HTML ku waxa weeye basically waa qaabka okay waxyaabaha aad u isticmaali karayso waxa kamid ah HTML basics ka hadda tagto tusaale kale waxyaabihii loo isticmaalay tusaale kale xagga waxa inoo yaala qaab dhismeedkii uu ka dhisnaa ama anatomygii HTML elementsku uu noo lahaa okay so tusaale kale waxa jira waxa la dhaho closing and open and closing tag baa jira so marka open ku waa shaygan macnaha waa qaabkan aad arkaysid oo inta badan waa waxyaabaha aan isticmaali doono oo marka waxaad ku fahmi doontaa markaynu gadno exampleska okay marka imka tanbiida waxay ku sheegaysaa paragraphka qaabka loo qorayo weey okay waxyaabaha labada u dhaxeeya ee labada anchor tag waxa leeyahay tags u dhaxeeya waxa loo yaqaanaa maxay ahayd contents baa loo yaqaanaa okay labada shay waxa u dhaxeeya waxa loo yaqaanaa contents shayadan marka la isku darana waxa loo yaqaanaa element mid walba gaarkiisa dib loo sheegayna waxa loo yaqaanaa tag okay so marka xagan uu kugu sii sharaxay mid walba waxa uu yahay closing tag iyo open tag oo xabaas oo dhan okay waxa jira waxa loo yaqaanaa attribute waan arki doonaa markaan ka hadlayno classeska markaan ka hadli doonaa arki doonaa waxa weeye class iyo waxa uu yahay ID waxyaabahaas oo dhan ma specific markaan ka hadlayno okay ama attributeska waxa jira waxa la dhaho loo yaqaan nesting elements ama elements isku guda jira okay ayaa loo yaqaan nesting elementska iyagana waan arki doonaa markaan ka hadlayno nesting okay waxa kamid ah strong baa kamid ah macnaha waxa qaybta kamid ah imika sanaxan my cat is very strong very waxay noqonaysaa bold oo kale not bold laakiin strong way ka duwanaanaysaa shayga kale oo dhan okay so marka basically inahaas in kaga gudbi doonaa basicska ama introduction ku saabsan waxa loo yaqaano HTML-ka iyo qaabka in soo dhawaan karsan VS Code